بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Bio Academy. kusoo dhawaw page-ka Bio Academy. waxaad nagala socotaan barta aynu ku leenahay Facebook-ga iyo YouTube-ka oo Bio Academy ah. Bio Academy waa xarun waxbarasho oo loogu talagalay in dhammaan ardayda Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan si gaar ah ardayda dugsiga sare ay ka saacido waxbarashada maadooyinka scientific ah. hadduu alla idmo insha Allah tacaala qaybo kale lagu soo kordhi doonaa, balse hadda kaliya waxa insha Allah tacaala ardayda ugu talagalnay inaan ka caawino dhanka waxbarashada maadooyinka scientific ah sida biology-ga, chemistry-ga, physics-ka iyo xisaabta. maanta insha Allah tacaala hadduu alla idmo waxaan halkan ku duubi doonaa cashir oo ah cashirkii koowaad ee maadada physics-ka fasalka 12aad. maadada physics-ka fasalka 12aad wuxuu ka kooban yahay buugga manhajka wasaaradda waxbarashada hidaaya iyo tacliinta sare 11 chapter. hadduu alla idmo insha Allah tacaala chapterka koowaad oo maanta qaybtiisa koowaad halkan ku qaadan doono waxaa loo yaqaanaa oscillatory motion, socod walhadeed ayaa loo yaqaanaa oscillatory motion, socod walhadeed. hadduu alla idmo insha Allah tacaala intuu ilaahay naga garsiiyo ayaan halkan ku sharxi doonaa oscillatory motion iyo introduction-kiisa. waxaan saxnay waxay ka ahaatay hadduu alla idmo insha Allah tacaala xagga alle, waxaan qaladnana waxay ka ahaatay xaggeena iyo xag shaydaan. hadduu alla idmo insha Allah tacaala waxaan ku dadaali doonaa intii karaankeena inaan wax sharaxaad waafi ah ka bixino wax loo yaqaano oscillatory motion. chapterka markuu dhamaado ardayga bartay maadadan physics-ka ee fasalka 12aad si gaar ah chapterkan koowaad ee oscillatory motion waxaa looga baahan yahay qodobadan inuu hubiyo. chapterka dhamaadkiisa kadib bartaha waxaa laga rabaa qodobadan soo socdo. 1 inuu qeexi karo ama description ka bixi karo wax loo yaqaano socod walhadeed. 2 inuu keeni karo tusaalooyin badan oo la xiriira socodka loo yaqaano socod walhadeed. inuu sharxi karo socodka loo yaqaano ah periodic motion. inuu kala saari karo ardayga farqiga u dhaxeeyo socod walhadeed iyo socod kaleed, periodic motion iyo oscillatory motion, farqiga u dhaxeeyo. sidoo kale waxaa la rabaa ardayga inuu kala saari karo farqiga u dhaxeeyo frequency iyo period, rakaad iyo kal, farqiga u dhaxeeyo. inuu xalin karo problemada la xiriira socod kaleedka. sidoo kale inuu ka hadli karo socodka loo yaqaano socod isku dubaridan ee fudud, simple harmonic motion, socodka isku dubaridan ee fudud. ardayga waxaa rabaa inuu dhisi karo isla egyada socodka loo yaqaano socod isku dubaridan ee fudud, inuu xisaabi karo tamarta ku kaydsan socodka isku dubaridan ee fudud. sidoo kale ardayga inuu tusaalooyin iyo qeexitaano saari karo waxa loo yaqaano walhada fudud. maxaa la dhahaa walhada fudud iyo tusaalooyinkiisa inuu keeni karo. waxaa kaloo looga baahan yahay ardayga hadduu alla idmo insha Allah tacaala inuu xalin karo problemo la xiriira simple pendulum. section 1 qaybta koowaad u gudubna marka. chapterka magaca loo bixiyay waa oscillatory motion, socod walhadeed. socod walhadeed intaan laga hadlin ka hor bal aan baranno waxa loo yaqaano periodic motion, socod kaleed. maadaama socod kaleedka iyo socod walhadeedku uu weyn yahay socod kaleedka, marka hore waxaan ka hadli doonaa hadduu alla idmo insha Allah tacaala periodic motion, socod kaleed ka hadli doonaa. periodic motion ka marka ka hadalna kadib iyo oscillatory motion usoo laaban doonaa. periodic motion maxaa la marka socod kaleed maxaa la is a motion waa socod that regularly returns, kaasoo si joogto ugu soo laabto to a given position, bar cayiman kusoo laabto after fixed time interval, waqti cayiman kadib. waqti cayiman markuu mara kadib wuxuu kusoo laabtaa bar cayiman. tusaale maxaa u ah marka examples of periodic motion, socod kaleedka maxaa tusaale u ah. ilaa meeshan waxaa noo sawiran 4 sawir oo socod kaleedka tusaale u ah. mid waa mass attached to spring, dhanka bidixda kasoo bilaabno mass attached to spring, cuf lagu xiray moolo. sawirkan noo muuqdo wuxuuna tusinayaa waa sawir dhaqaaqayo oo animation ah. wuxuuna tusinayaa moolo ayaa derbi lagu geejiyay ama meel kore lagu geejiyay, cufa lagu xiray. marka mooladu waxay sameynaysaa marna cufka soo jiidanayo, marna xooga ku jiro moolada celinayo. maanta dhan maxaa marka socodka noocaas ah waxaa loo yaqaanaa socod kaleed, periodic motion loo yaqaanaa. periodic motion marka qaybino qayb ka aadi doonaa socodka noocaan ah, laakiin hadda waxaa loo yaqaanaa periodic motion. socodka labaad tusaale soo qaadan waxaa motion of planets around the sun, socodka ay socdaan meerayaasha markay ku dul wareeganayaan cadceeda. meerayaasha tusaalaha ugu wanaagsan ee la soo qaato waxaa waaye the earth, midka aan ku noolnahay waa dhulka.
dhulka muxuu sameeyaa wuxuu ku dul wareegtaa asoo marayo orbitkiisa soo marayo ama midaarkiisa soo marayo wuxuu ku dul wareegtaa cadceedda wuxuu ku dul wareegtaa qoraxda every 365 365 maalmood kasto wuxuu wareeganaa one time hal mar soo wareegtaa socodka uu sameeyo waxa loo yaqaan markaas socod kaleed loo yaqaan labada nooc socod kaleed hadda soo sheegnay wax yar oo farqi u dhaxeeyo mid fiir muxuu sameeynaa moolado kale back and forth am up and down kor hoos ay u dhaqaaqaysi laakiin fiiri socodka dhulka fiiri marka maxaa waay waa socod one way direction hal jiho u socdaa bis wareegana on a circle wadadii goobada ku soo wareegana bis ay motion of hand of clock wareega gacmaha saacada fiiri marka gacmaha saacada ay leeyihiin fiiri saacada maxay sameeysaa ama darbiyada ku dhagan ama gacmaha lagu xirto mid yarta ahaatee maxay sameynaysaa fiiri gacmaheedu 12 waxa la 11 10 9 8 soo wareeganay nambaradaas ay leedahay ku dul wareeganay maanta dhan one way direction hal jihan u socotaa hay motion of pendulum wala hada fiiri marka wiifowga tusaalahan wiifowga hadda noo sawiran fiiri wiifowga muxuu sameeyaa wiifowga marka asoo taagan ama qof inta la saaro la riixo muxuu sameeyaa back and forth hore gadaal oo socona maanta dhan oo dhaqaaqa labada geesaha jira oo master target iyo pendulumka waxay sameeyaan markay laabanayaan maxaa waay back and forth hore gadaal u laabtaan ama maxaa waay up and down kor hoos oo dhaqaaqa laakiin kuwan socodkooda maxaa waay hal direction u socdaan jiho laakiin jihada markay soo socdaan gadaal u laabanayaan iyaga way soo wareeganayaan hal jiho u socdaan iyaga dhan waxaan u maleynaa hadda inaad tusaalooyin ka bixi karno periodic motion oo afar tusaale soo qaadanay master target spring motion maxaa la motion of planets around the sun motion of hand of clock motion of pendulum tusaalooyin waafi ayaa soo qaadanay waayahe hadduu alla idmo insha Allah tacaala waxaa ka hadlaynaa periodic motion oscillatory motion inta naga soo galaa marka asoo fiirna hal mar marka periodic motionka socodka loo yaqaano wuxuu leeyahay laba nooc midna waxaa la lahaa oscillatory motion socod walhadeed midna waxaa la lahaa non oscillatory motion socod aan ahayn socod walhadeed laba nooc midna waa socod walhadeed midna socod walhadeed ma ahan waxaa laga wadaa midna wuu walhadaa midna ma walhado periodic motionka socodkiisa walxaha qaarna way walhadaan walxaha qaarna ma walhadaan oo walhasho ma sameeyaan maxay kala yihiin marka labadan oscillatory motion waa kana socod walhadeed waa kana is divided as waxaa lagu qeexaa inuu yahay as a motion socod of back and forth shayga uu dhaqaaqayo horay gadaal back and forth horay gadaal horay uu dhaqaaqayo shayga ama uu dhaqaaqayo up down kor hoos uu dhaqaaqayo of an object shay from its mean position bardheelitiranka shayga markuu taagan bardheelitiran waxaa laga wadaa shay meel taagan oo aysan xoog kala saameyn xoog dibadda uga imaaday uusan saameynin bardheelitirankiisa markuu taagan yahay dhaqaaqa shay u dhaqaaqo horay iyo gadaal oo uga dhaqaaqa waxa loo yaqaanaa oscillatory motion socod walhadeed loo yaqaanaa tusaale fiir marka afartii daqiiqo aan soo qaadanay laba kamid ah waxay tusaale u yihiin oscillatory motion maxaa kamid ah mass target to spring cuf lagu xiray moolo labo motion of pendulum walhadaha dhaqaaqiisa hal mar sawirka hore noo celi sawirka hore markaad joognay mass target fiir hadda mooladan tusaale kale dhaqaaqo saadib maxay sameynaysaa up down kor u dhaqaaqay hoos socodka noocaas waxa loo yaqaanaa oscillatory motion of pendulum ka fiir marka wiifowga maxaa sameeyaa waa dila soo riixo hore u dhaqaaqa waa sodayna gadaal oo aada hore u aada socodka sameeyay maxaa marka oscillatory motion waa nooc kamid ah periodic motion ay non oscillatory maxaa la marka non oscillatory motion waa kana marka diiwaanadaas waxa lagu qeexaa the periodic motion waa socod kaleed which objectives kaasoo walxuhu does not move back and forth kaasoo aysan hore iyo gadaal u dhaqaaqaynin shayga maxaa waay hore iyo gadaal ma u dhaqaaqayaan macnaheedu waxaa waay one way direction hal jiho u socdaan bis ama hore u soconayaan ama gadaal u soconayaan bis example from oscillatory motion waxaa tusaale ah marka hand of clock gacmaha fiir oo hal saacad maxay sameeyaan hal jiho u socdaan iyaga dhan way wareeganayaan bis motion of planets meerayaasha ka waran hal jiho u socdaan way wareeganayaan iyaga dhan waxaan maleynaa hadda inaan kala saari karno periodic motion maxaa la lahaa oscillatory motion maxaa la lahaa mid kastana tusaale u keeni karno hay period and frequency kal iyo rakaad period and frequency kal iyo rakaad period maxaa la lahaa marka
is the time taken waa minta ku qaadato to make si loo sameeyo one complete cycle hal wareeg oo dhameystiran and this is a unit halbeegiisana maxaa marka seconds isa lagu cabiraa formula mid qaacidada lagu heli lahaa waa kana period maxaa lagu helaa time taken oo loo qaybshay number of oscillation time taken amintay ku qaadato shay oo loo qaybshay number of oscillation inta jeer shaygu uu walhaday ama uu wareegtay sidoo kale ogow xusuusnawne period waxa loo yaqaan waxa loo soo qaybshay t capital mar walbana wuxuu rogaal ku yahay waxa loo yaqaan frequency rakaadka rogaal ku yahay frequency waxa la markaa la soo qaataa sin is the number of cycles waa inta jeer wareeg ama inta wareeg made la sameeyay in 1 second hal ilbiriqsi gudihiisa inta wareega shaygu uu sameeyay way halbeeg lagu cabir maxaa way hertz lagu cabira hertz waa nin magaci hertz xusuusna wuxuu la mid yahay hal hoos dhiga second ama rogaalka second oo la mid yahay frequency waxa lagu helaa marka qaacidadii hadaaya period kan ku soo aragno lid ku yahay bis number of oscillation oo loo qaybshay time taken marka sidoo kale asna waa rogaalka time oo ah time taken oo rogaalka period oo ah warfa t way inta anaga haysan hal mar waxa dib u laabanayna hadaaya periodic motion marka soo qeexayna xanaane is a motion waa socod that regularly returns taasoo si joogto u soo laabasho ama noqod af Soomaali waxa loo yaqaan rakaad loo yaqaan waa frequency given position after time interval time maxaa way kal way amin waxa loo yaqaan amin maxaa marka kal tooka way waxana marka period iyo frequency labaduba waxay muhiim u yihiin waxa loo yaqaan periodic motion socod kaleedka hadduu allid insha Allah taala waxa qaadan doona labada problem ee ugu horeysa chapter kan oo ah example 1 iyo example 2 casharada qaarna waxay noo noqon doonaa insha Allah taala maadaama calculation oo jiro sabuurada tagi doona in qan qaadano ay safar qeyd doona hadduu allid insha Allah taala intuu alla naga waafajiyo tusaalaha koowaad marka example 1.1 suspended mass makes 60 complete oscillations shay ama cuf la soo laadlaadiyay meel laga soo laadlaadiyay oo sida mooladii hadaaya cufka lagu xiro kala ah yaa waxay sameysay 60 complete oscillations 60 wareeg in 15 second shan ilbiriqsi gudihiisa marinta kor tagto hoos tagtay macnaheedu waxa way 60 wareeg oo dhameystiran sameysay shan iyo 15 ilbiriqsi gudahood hadaba soo saar kalka iyo rakaadka socodka soo leeyahay kal iyo rakaad time oo maxaa la lahaa waa haysanaa number of oscillation waa haysanaa frequency period aan loo diro marka labada tira meesha ay ku qoran xoog saar iyaga fiiri 60 maxaa ku har qoran complete oscillation is fiiri number of oscillation oo yahay 15 maxaa ku qoran 15 seconds shan iyo 15 ilbiriqsi maxaa lagu cabiri jiray time labadaas noo soo saar given over marka time kala mid 15 second number of oscillation oo 60 oscillation is frequency maxaa lagu heli jiray marka qaacidada hore noo geey frequency maxaa lagu helaa waxa lagu helaa number of oscillation oo loo qaybiyay time taken ayaan geey marka number of oscillation kay maanta meeqa way 60 way loo qaybiyay 15 maxaa soo baxay 4 hertz waa 4 hertz hay'ad period waxa lagu helaa marka adoona waxba is dhibin 1/4 dhigata sababtoo ah period wuxuu ahaa jiray rogaalka rakaadka 1/4 waa jiray Soomaan f ma qaaysan 4 1/4 waa dhigi kartaa qaacidada caadiga soo mar maxaa lagu heli jiray period waxa lagu heli jiray time taken oo loo qaybshay number of oscillation time taken ma qaaysan 15 loo qaybiyay number of oscillation 60 korna 15 qayb hoosna 15 waxa soo baxay 1/4 second tusaale la fiir marka waxaan qoran if you had to beat hadii garaaca wadnahaagu is 15 baxala 150 beats ay tahay 150 garaac per minute daqiiqadiiba goormee laakiin during hard exercise inta lagu jiro exercise culus ama jimicsi culus inta lagu jiro was the time per beat waa maxay aminta ay ku qaadatay halkii garaac jawaabtan waxa ku sheegtaa second ahaan hay given ka soo saarno laba tiran la siibis mid maxaa waay 150 garaac waay maxay u taagan tahay number of oscillation u taagan tahay 150 garaac maxay u taagan tahay number of oscillation ay u taagan tahay koob maxaa kaloo la siiyay labo period waxaana la siiyay time-ka per minute daqiiqad Soomaan halkii daqiiqo meeqa la mid tahay marka 60 second la mid tahay oo halkii daqiiqo waxa la mid tahay 60 second number of oscillation waa 150 time period maxaa lagu helaa marka time taken oo loo qaybshay number of oscillation 60 loo qaybshay 150 waa 0.4 second cashirkeen intaas uu gaagahay cashirka wuxuu leeyahay practice ku waa muhiim ardayga qaabka ugu wanaagsan wax ku barto waxa waa inuu wax ka shaqeeyo oo maskaxda dhibo waqti badan iyo juhdi badan uu bixiyo hadduu Allah insha Allah taala cashirada halkaan ka sii wadeena cashirkan waa cashirkeeni koobaad waxaynu xigi doonaa insha Allah taala cashiro musalsal ah oo isxiga oo dhamaantoodba si official loo soo dhigi doono
beejadka kala duwan ee maxaa la dhahaa Bio Academy, Facebooka, YouTube-ka. insha Allah tacaala adna ka faa'iideyso, saaxiibadan uga faa'iiday, gaarsii dhammaan. waad mahadsan tahay. afartan su'aalood ee problemka ah ee maxaa la practice-ka ka soo shaqee answerskoodan oo kuwan haddii answerskan ay ku soo baxaan fadlan wadadii aad soo martay nala soo wadaag. waad mahadsan tahay. Thank you for listening. Any comments wixii tusaale loo soo dhaweynayna insha Allah tacaala. aad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.